ما سيدا لي سنة قرع عاشر waxaan maleynaya waxaan sameeyay 2013 maanta jacaylo waxay ahayd jacaylkeedii oo kale arrimaheeda ay daarnayd moogta waxaana laga yaabaa halabuurku waxa uu sameeyay halabuurku waxa uu sameeyay waxa laga yaabaa inta badani inay kulli way kala culus tahay marka aad u naftaada u heesaysid iyo marka aad naf kale ka heesaysid labay kala tahay waxaan ku sameeyay halkan niyo ma garanayo bishisteed marka la gaaro sanad walba maalintii rabtaa kaga aado maanta jacayl baa iga soo baxda marka bishisteed la gaaro sababta ma aqaan laakiin waa ka cod daaranayaa sababta markaas ay sida dirir sagaalaad seerma weydo jiro ku sitaqay roobkii saxan-saxada farax leh sanka loola raacaan saabka kuugu haysta sahal wax ku beermo siir igu fiday baa sar ugu abuuro sawirkaaga mooyee habla kale ka saahiday naftaas sabankan caashiqan saqashada xasuusta la sodon iyo ka badan baan sigashada habeenkii sariirta ka kacaya qorraxda salkeeda dhulka uu la siman yahay saddex midab guduudka uga saartay guusaha suurada iftiinka la sokeeyay jacayl suurada iftiinka la nafta lagu sababaan sokeeyay jacayl iyo xubbi ku sidaayo sahw baa ugu beerta sidaa markaasaan halkaan markay maansadu maraysay baan dabeetana gabar baan dalxiisinaya moogta dabeetana gabadhii waxaan kasoo dalxiisiyey dalxiiskii baan uga soo bilaabay sool iyo sanaag iyo halkaa iyo laacayn oo dabeetana mudugtaan hoosaan keenaya gabadhi anoo wada marka maansada sanad guura caashiq halkaas wuxuu leeyahay sool iyo sanaag iyo sinta ceeri gaabiyo baran oo sokeeyo sadka dhalay ku haystaan saabaroon ka shaaliya cayn sabad wanaag iyo saxdheero roobkii inta uu ku simay dayr ubaxsan guduudihiisa saaray gaadada saddex booda dhaantiyada sidqayaad la goysaa kulli de mansadaas inkastoo aan inta ku soo koobayo waxay soo socotaba markii aan inta ku soo dhameeyay baan waxa la gaaray 2000 iyo hadda 2015 ayaa la gaaray moogtahay jacaylkii iska sanad guurada lahaa dabeetana ilaahay amarkii waanigi tagay caradii marka mansadani sanad guura caashaqi aniga in badan waxa jira noloshayda feedback badan oo kaga soo laabtay inkastoo aan dareenkan kaga hadlayo meeshiisa yaalay in badan oo bulshada kamid ah wax isoo weydiinayaan su'aalo waxay leeyihiin hada waxa la oran karaa maansada in yar oo aad adigu taqaanayo waaga diyaarad ku socon jireed maansada ku koobtay waxa gobolada Soomaaliya oo dhan u diiday maanta waxaan isleeyahay kalsan baan kala saari doonaa anaga iyo ummadda intii kale aan maray mar haddaan socon doonto niyo xagga wax samaynta horta qofka banaanka bulshada horta waxa la yiraahdaa sida saxda Soomaalida ay tiraahdo waxa la yiraahdaa amba wahida amba hawl keenta qofka ama inay hawl ku timaado marka hal abuurnimada ka keenta ama inuu iyo fan iyo meel uu ka keeno oo ku xiran uu jiro xaqiiqan aniga abahay uu gabiya ilaa haduu gabiya oo gabi jiray yaraantiisii laakiin anu markaan bilaabay abahay ku dayashadiisa ma ahayn aniga waxa laga yaabaa maalintii aan wax ka sameyn lahaa in la gaaro waxaan maleynayaa baasho waxaan soo waday teedadayda marka laba loo qaybiyo hadda ku dhawaad malaha meel waa soo heesay baan oran karaa qofkuna marka uu miyi ku dhasho oo ku soo koro af Soomaaliga saxda ah ee miyiga looga hadlayay marka magaalada la timaadid waxa laga yaabaa inaad ka qalootid kii magaalada joogay la timaadid maansadii ugu horeysay oo aan tiriyay waxa loo jiray Soomaaliya qaribanay waxa Soomaaliya qaribanay qarannimada diiday uqulqula tahriib ay qayla dhaanta badisay qeyro beena wadataa kulli baan ka sii xasuustaa laakiin waqti dhow ma ahayn waxaan maleynayaa xilligaas iskuulka hoose dhiganaysa adigu aan isleeyahay waka markaasaan sii wadayo la sii daba tagayo dabeetana waxaan ba arkay qolyo badan oo ii saacabinaya moogta wallahi waxaad sameyn kartaa ilaho ilaa haddaan sacabka ku sii socdaa moogta waxaan leeyahay balad ku sii qaxday caqabad ma laga baxaa caqabad ba adduunka laga ma baxo waxaan aaminsanahay adduunka dhexaad ma jiraanba adduunka kan aan saaranahay dhexaad kama jiro hadaad xaq u heystid inta xaq darada diriraysan moogta oo xaqaaga ay dhibsanaysaa hadaad xaq darada u heystidna inta xaq jecelba kula diriraysa hadaad jacaylka u heystid inta jacaylka neceb oo jacaylka ba dhibsaday
unbaa dagaalkiinu hameenkaa ogmaya haddaad nacayb ku haysana inta jecel baa moogtaa bohor kuu taaganaysa adduunku marka caqabad lagama waayo anigu waxaan soron karaa caqabadba intaan leekahay caqabaduba waxay ii ahaayeen jaranjarta aan ku socdo amba gogosha laakiin gabaygii kurbo yaan oran karaa yani raad buu kuu reebay baan is oran karaa berigii dee halkaan aan joognayo aan berigii raafka gabaygii kurbo aan tirin jiray ayaa haweenada ka mida waa tii la xiray moogta dabeetana anaa is xisaabiyey dembiga aan galay muxuu yahay oo saan xisaabtii uudayba alle caawa kurbaa lagugu haystaa caqabada koowaad nafteyda ku xisaabiyey buu ahaa waka marka caqabaduhuna ma yara hamin walbay kugu timaanaysa waxaa laga yaabaa inaad hees dareenkaaga aad ka samayso o khayrila aad samayso dabeetana kuwa siyaasad ka dhigaan inkastoo aanan jeclayn inaan maansooyinkaiga kala soko marsado haddana xusuusta way wada leeyihiin tii dheeman baa ku jirtay tan kurbo kalea ku jirta sanad guuro kale sanad guuro caashiq mida la yihahdo iyadana lamid bay ahayd inkastoo xagga fuuqbaxaygu u badan yahay xagga heesaha oo inta badan xaggaasan ku fuuqbaxaa laakiin hameenkaan israado waad ku baaraysanta wax maanse ka yar nafteyda uguma jawaab celiyo moogta gabayga kurbo wuxuu ahaa waxyaalihii aniga kolley de markaas hortayda yaalay oo de bulshada amba aan la qaybsado amba qaas ay ahaatee laakiin marka la dhaho silsilada jacaylkaay yani silsilada caadi oo taalada aan u taagay baa jirto oo taa sanad guura caashaq midaan hadda kale tirin doono oo la yidhaahdo safarkaygu waa dhaqan baa daba socota ilaa hadda de intaan ka loo naana mar walba marka bisha yani sideed la gaaro waxaa laga yaabaa inay noqoto taalo caadi oo iska socoto hadba mid iska soo baxdo moogta daba socota istaahil heesta qaada jirtay ilan heesta waxaan sameeyey 18 agoosto 2015 waxaan joogay magaalada Jigjiga waa safarkii buu iyadana la xiriirtay dabeetana magaalada Jigjiga markaan tagay baan halkaa ugu tagay fanaaniintii dee af Soomaaliya ku heestiday oo reer Jigjiga waxaan si khaas ah ula joogay muddo 19 cisho kooxda Lisbon ayaan aad ula joogay oo aan uga mahad celinay halkaan kana salaamayo sida ay soo dhaweeyeen dabeetana waxay ka mid ahayd heesii aan ku sameeyey magaalada Jigjiga waxay dhahaysay naf baan jecelahay in badan nuur baan ka sugaa rajada naf baan jecelahay in badan nuur baan ka sugaa rajada nal baa iga baxay yarkaan midkuu naawilay qalbigu walow noolaha dhammaan nafaqo uga yahay xubbiga hankiya niyadiyo indhuhu nurro usii ahaan anaa nafla qaybsi biday inaan na jaxreer ku dago nuxusta warkooda iyo muxuu nacab sheegaya nafdiga caashaqa harsada kaskaa nabarradoo damqayn hankaa keligii ku naban dee hankaa keligiisuba ku dhegan yahayba dee aada iyo aad marka wuxuu tilmaamayay gabar dee ninkeedii ay jeclayd iyo isjeclaayeen heshay oo ay xulatay oo dadka kala dhex baxday inta kale oo meelaha yacni kasoo nuxnuxda iyo sheekooyinka yarar kasoo dhahaysa baybay si toos ugu sheegaysa waxay leedahay anaaba nafla qaybsi baday inaan jaxrir ku dageen xusta warkooda iyo muxuu nacab sheegayaa su-aashu marka dee nacabkii u taallaa waxaan filaya adiga nama qusayse nacabka iyagu waxay sheegi lahaayeen inay style u sheegaan bay ahayd mufta marka heestaas saasay ahayd xaqiiqan waa hees macaan oo gabar cod macaanina way qaaday adiguna waad ku mahadsan tahay hadaad kusoo colcoshatid waxaa laga yaaba laftirkaagu inaad kaa jeclay heshay macquul sama marka taasina waxay ahayd halkaasaan marinay marka dee magaalada Jigjiga magaalo yar oo iska barakaysan moogta Jigjiga waxaan tagay 2001 baan anigu tagay mar anigu gobolkan doolo iyo intaa un baan ku ekaa dhankaan sokay laakiin 2001 baan tagay magaalada Jigjiga labaatan hadda safarkayga labaad aan tago hadduu ii ahay magaalo yar oo iska barakaysan oo quruxsan waxaan ku sameeyey 32 heesood baan sameeyey 19 cashan joogo Jigjiga 32 heesood iyo hal maansaan ku sameeyey Jigjiga te magaalo yar oo iska khatar ah
waxaan bal leeyahay jawigaa deganaa waxay ahayd iska nuurka iyo raxmaduna moogta qofka muudka aad ku jirto uu soo degaa xataa laga yaabaa adii odagaagu habeenka aaminada aad wada joogtaan adiga laftigaadu dee waxbaad ka og tahay raxmadda xataa sheekooyinkiin aad sheekaysan raxmadda iyo muudku inuu kala bedelan yahay waxaa laga yaabaa habeen sheekadu isugu kiin baxdo aad aragtaan idinkoo saddexda aroornimo soo jeeda saddexda aroornimo idinkoo soo jeeda inaad aragtaan baa dhici karta muud marka muud barakaysan baa yahay jigjigaan horta wixii ugu badnaayo aan ku arkay waxay ahayd aan ku qoslay magaalada jigjigo oo dhan dadka jooga aabays yiraahdaan sida loo kala weyn yahay la isu dhaaf moogta sida loo kala weyn yahay la isu yiraahdaa jigjigo oo dhan baa mid walba aaba ku dhahay dee 1,100 dabeetana markaas madaxaaga taabanaysaa moogta wallaahi badaar ma lihid waad magaabantaa dabeetana age-kayga iyo intaan jiray baan xisaabiyaa inaan yarahay markii dambe aan ogaaday inay tahay isxushmayn iyo